بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والله كلن كينن waxaan doonayaa inaan idinku soo gudbiyo dardaaranadii nabiga calayhi salaatu wasalaam mid kamid ah waana kulankeenii labaad. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray isaguna samayn jiray marka qofka balaayo xanuuno dhibaatooyin ay yimaadaan ama isaga ay ku dhacaan ama adduunyada uu ku nool yahay ay asiibaan waxyaabaha uu inoo jeedeeyay inaynu nidhaahno baynu wadaagaynaa. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka yidhaahda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim 3 goor qofka yidhaahda kuma dhacdo dhibaato iyo balaayo kuma dhacdo ilaa inta uu waagu markaasi ka baryayo. qofka yidhaahda 3 goor dhibaato kuma dhacdo ilaa inta uu galabta ka gaadhayo buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax adag maaha, wax culus maaha, waa inaad tidhaahdo oo keliya bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wa huwa asamiicu alcaliim. wax badan kaa qaadan mayso, culays maaha, wakhti dheer uma baahna. waa maxay? ilaahay magaciisa marka la soo qaado wax dhibaato ahi aanay kugu dhacaynin ayaan xusayaayoon xirsi ka dhiganaya ayaad odhanaysaa. cir iyo dhultoona meeshaad joogtaba aanay dhibaato markaasi ku gaadhaynin. allaha wax walba maqla ee wax walba cilmigiisu koobay ayaan addoon u ahay, magaciisana aan ku wardiyayaa. haddaad tidhaahdo wax ku dhibaataynayaa ma jiro fi lardi walaa fi lsamaa. taabiciga xadiidka ka warinaya cuthmaan ibnu cafaan oo ah saxaabiga xadiidka warinaya ayaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa igu dhacday buu yidhi xanuunka la yidhaahda qalalka ama faaliga marba sida loo yaqaano. dabeedna wuxuu yidhi xadiidka anigoo akhriyaya oo ardaydiisii uu akhriyayo ayaa nin dadkii dhagaysanayay ka midabaa xoog ii soo eegay buu yidhi markaa. dabeedna waxaan ku yidhi buu yidhi war maxaad iga eegaysaa? ilaahay baan ku dhaartaye anigu been kama sheegayo. saxaabiga xadiidka warinaya been kama sheegayo. saxaabiga xadiidka wariyena nebiga been kamu sheegin buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. aniga qalalkan ama faaliga igu dhacayna sababta iyo goorta uu igu dhacay baan kuu sheegayaaye wuxuu yidhi wuxuu igu dhacay ama xanuunkan iyo haleelayba maalin ayaa wuxuu yidhi waan cadhooday, waan xanaaqay, dabeedna waxaan ilaaway buu yidhi dikriga iyo wardiga inaan akhristo. naftayda inaan ku xirsi xidho baan ilaaway, dabeedna qalalkaasaa igu dhacay buu yidhi. bal u fiirso, waxaynu ka faa'iidaynaa walaalayaal wardigan maxaa ilaahay iyo nabigiisuba calayhi salaatu wasalaam nafteenna iyaga inaga yaqaana. nafteenna maslaxadeeda iyagaa og, danteedu halkay ku jirto, caafimaadkeedu halkuu ku jiro, badbaadadeedu halkay ku jirto, badhaadhaheedu halkuu ku jiro. sidaa awgeed waxaa laynaga rabaa inaynaan nafteenna ka hilmaamin oo inaan nafteenna ka ilaawin. sheekha weyne mufasirka ee la yidhaahdo imaam alqurtubi raximahu llahu tacaala ee kitaabka weyne tafsiirka leh ayaa wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mida xadiidkaa markaan maqlay weligay kama tegin buu yidhi inaan ku camal falo, laakiin wuxuu yidhi hal maalina baan ka tegey. u fiirso hadda, hal maalina baa weligay ka tegay buu yidhiyo dabeedna wuxuu yidhi anigoo habeenada ka mida socdo magaalada madiine dhexdeeda ayaa waxay igu dhacday buu yidhi waxay qaniinay bahalka la yidhaahdo dibqalooca ama dabaqalooca marba wixii loo yaqaano ama aleelaala i qaniinay. bahalkaasi markuu i qaniinay ayaa anigoo xanuunkiisii la tacaalaya ayaan is yidhi buu yidhi naftaydii dib u xisaabiyeeyo war maanta xirsi xidhkaagana maad ilaabi jirin xaggee lagaa soo raacay. dabeedna waxaan is ogaaday buu yidhi inaan ducada ilaaway maanta oo aanan akhriin baa ii soo baxday buu yidhi marka walaalayaal duruufteenna, xanuunada, xirsi xidhka, karoonaha, kayrkii waxyaabaha dhacaya waxaa laynaga rabaa
inaynu xirsi xidhka nabigu inoo jiday calayhi salaatu wasalaam aynu xirsi xidh uga dhigano. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala aafaadka iyo wabaaga iyo karoonaha iyo kansarka iyo keyrkood magacyaday doonaanba ha qaataane markaynu ilaahay wardiga iyo dikriga isku xirsi xidhno inaanay insha allahu ina dhibaataynaynin. ilaahayna haynagaga badbaadiyo. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.